waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xidhiidhay kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani col duulay oo geeldoon ah inay ka mid noqdaan. ka soo qaad haddaba in colkaasi uu galo reero baraadla oo nabad u fadhiya, inuu ka soo mooro duugo horweyn iyo haleelo wixii ay dhaqeen, maqrib dumayna uu xeryaha u madoobeeyo. ka soo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor raggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuludiisii u soo jilba jabsado. su-aashu waxay kolka tahay, ileen maansayahanada colka la socdaaye hadda nin keliya ma ahee, tolow hasha gabay markii la soo gaaro yaa qaadanaya. siday u badnayd waxay uga heli jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin, ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuusee kolba kooda u dhallin badan ayay hashaas iyada ah u daysan jireen. iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku dooda oo inta xira daraaqa haddana saddexdii wallaahood ku mara in isagu uu tuludaas ku gar leeyahay, haddaan la siinna uu geesa dhiig leh ka xigi doono. taas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ahaayoo la oran jiray cali maxamuud samatar, cali guray dashiishana ku magac dheeraa. raggii gebyi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa. weligiina siday wariyeen kama uu harin duulaan baxaaya, geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba. wuxuu ahaa ninuu magaciisu aad u dheeraaday oo madax iyo manjaba ay bulshadu kobta uu joogo ku soo xoomi jirtay. beri baa gabyaa kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aad u yaqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaad la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu meel fogba kama doonina wuxuu ku jawaabay laba meelisoo uu cali guray ku ammaanayo, uuna ku tilmaamayo inuu yahay ragannimo oo idilinin ay ku idishahay, ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan. wuxuu yidhi, gar la naqo, guddoon la isu waco, goro la maageero, gur iyo toos, nimaan gaar lahayn cali guraan sheegay. cali guray ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa. waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray sayid maxamed iyo boqor cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka aroosnayd ku colloobay. boqorka ayuu dhinaca saari jiray, wuxuuna ugu horreeyey raggii sayidka u gebiyey ee daraawiishta sida ba'an maqalladooda u xumayn jiray. taa awgeedna wuxuu boqorku abaalgud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay. guddoonkaas oo la wada og yahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaalay col uu gabyaagaasi ka mid ahaa. ciidan mahigaana markii la ururiyey ayaa siday caadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kula ballami lahaa kala ballamay una duceeyey. dabadeedna markuu u hogbaday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dheggan oo ku leh, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay ii guddoomi. boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yidhi, war hasha gabay waataan beri hore cali guray u guddoomiye, orodoo colka raac lagaa tegiye. ma uu yeeline baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey, isaga oo boqorow hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinaya. boqorkiina intuu aad u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yidhi, war baramaashayda kac qaado oo kolun marada iisii daah. kiina isaga oo weedhaa ku faraxsan asi aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey. maalma kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cid galeen ay qaybsanayaan ayaa cali guray hashi loogu yeeray. waxaase sida la marayn karo ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay. qir iyo qirsoo ma noqon, soo raggiina labadoodii lama kala safan. markaas buu cali guray afkiisa la baxayoo gabaygii alla baray ku dacwiyey, isaga oo tirinaya dadka iyo dhulka ballaaran
ee laga og yahay guddoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu iska leeyahay isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu rag rif yahay ayuu yidhi in guddoonshihii igu rayiday gabayga ruudiisa hartiyaasha ruux iyo ka shira raanta sare baa og ingiriiska roodiya fadhiya ramal carbeed baa og culimada cilmiga raacatoo runu dhowaataa og waayeel rubaysiyo raggii rugaha joogaa og ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og aan rifaa ma sheegine intii raggii tiqiin baa og dixdaa gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo idili Cali Gurey u garaabay dacwadiisii baa madaxa loo wada ruxay markaas baa isla goobtii hashii lagu guddoonsiiyey iyada oo kii ku haystayna ay indhihiisu shan yihiin shirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn isla waayada ayuu Sayid Maxamed la guddoomiyey in geelii ay daraawiisha soo qaadaba Ismaaciil mira hasha gabay laga siiyo maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay colow Ismaaciil ku jiray asi uu ammaan duula ka ahaa darwiishkii la oran jiray Abshir Dhoorre Xasan oo ragga dagaalama iyo qusuusidii wadaadka la talin jirtay labadaba ka mid ahaa sababta garan maynee Abshir hashii gabay ee sayidku u xukumay Ismaaciil waa u diiday markaas buu isna mariyay tix uu arrintaa kaga cabanayo uuna ku sheegayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanayaa raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muran ka gelin kuwaasoo uun aakhiro u batay wuxuu yidhi cadka goonji nimankii i baray yaanan soo gocanee garwaaqsiga ammaan yaan ilmadu gaadada i qoyne cibrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo daraawiishta goomani hadday guriga soo gaadho garaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo galowdaan u taabanahayaa gu'iya jiiraale cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo dabatadaba wou gabawartaan garawadeennii gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaaleeye cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaye galiilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaade cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo maantaas buu isaguna sidii Cali Gurey hashiisii gabay tixdaa ku soo dhacsaday dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbo idmo